بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا waxaan u mahadnaqayaa marka koowaad Ilaahay oo mahad oo dhan u sugnaatay marka labaad waxaan u mahadnaqayaa TV-yada dhammaan warbaahinta sportska ee halkan ku sugan Astaan iyo Turu ay ugu horeeyaan waxaan halkan ka shaacinaynaa dhowr qodob oo muhiim ah iyada oo ay dib inoogu bilaabi doonto shaqooyinkeenii iyo horyaalkii iyo maxaa la dhahdayay sidaynu ku ballanayba FA Cup-kii oo isna hadii Ilaahay dhaahdo qorituurkiisa dhici doono inta aanan u gudbin qodobadaas waxa aan doonayaa inaan uga faa'iideysto halkan media-ha inaan u mariyo hambalyo dhammaan Somaliland oo dhan sida quruxda badan ee ay u soo guteen waajibkoodii iyo doorashooyinkoodii waan leeyahay Ilaahay khayr iyo baraaro uu inoogu dhameeyahay inoogu wado waxaan u yeeri doonaa xogayaha xidhiidhka kubadda cagta oo isagu inoo faahfaahin doona sida noqon doonaan hadii la heeraa qodobadaas iyo ogeysiisyadaas oo dhan waxa kale oo doonaynaa halkan uga faa'iideysto in dhammaan maxaa la dhahdayay dhammaan hawlaheennii aanay noqon doonin insha Allah sidii hore oo dhan xidhiidhku uu qorshayaal ka yeeshay wax badanna dib loo habeeyay wax badanna dib loo xaliyay oo insha Allah noqon doona habkani hab sidii hore ka duwan ka qawaanin adag ka nidaam adag hadii Ilaahay dhaahdo si hab sami socodkeenu insha Allah inoogu bilaabmo horyaalka oo ay ka harsanayd suuqu ka hor bilaabmay oo ay ka harsanayd 2 week 2 ciyaarood baa hadii Ilaahay dhaahdo isagana noo bilaabi doona kaasoo isna ku bilaabi doona barbilow qurux badan oo maxaa la dhahdayay qawaaniintiisa cusub wata iyo nidaamkiisa iyo kala dambeyntiisa cusub waxaan ku soo dhaweyn doonaa xogayaha xiriirka kubadda cagta oo inoo faahfaahin doona dhammaan nidaamadaas iyo qorshayaashaas iyo ballamahaas sida noqon doona hadii la helaado aad baad mahadsantii dhammaan TV-yada sportska sida quruxda badan oo la shaqeeyay hadaan nahay xiriirka kubadda cagta waxaan leenahay dhammaantiin aad baad mahadsantiin guuliyo gobonimo Somaliland bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore Ilaahay subhanahu wa ta'ala ba mahadle mar labaadna waxaan u mahadnaqayaa labada TV ee Astaan Cable TV iyo True Cable TV oo mar kasta u heelan ciyaaraha tabintooda iyo soo bandhigidoodaba salaanka bacdi waxaan insha Allah biidmilaahi ta'ala maanta dib u furan doonaa ama dib u soo bandhigi doonaa inuu noo furmi doono horyaalkii muddada inaga istaagay inagoo hore media ugu sheegnay inuu maalin furmi doono laakiin ay naga soo dhaxgashay doorashadii iyo dhammaan ciyaartooyadii oo ka wada shaqeynaya shaqada doorashada taas hakadina gelisay laakiin insha Allah biidmilaahi ta'ala wuxuu dib inoogu furmi doonaa maalinta Jimcaha hadii Ilaahay yiraahdo ay horyaalkii qaybtiisii dambe u dib inoogu furmi doonaa marka sidaa lagu ogaado maamulada iyo macallimiinta naadiyada heerka koobaad heerka labaad iyo heerka saddexaadba sidaa hawlo socdaan taasi waa furitaankii iyo dib u furudii horyaalka waxa kale oo insha Allah isaguna inoo furmi doono qorituurkiisa inoo bilaabmi doona FA Cup-kii ama koobka xidhiidhka kubadda cagta oo isaguna inoo bilaabmi doono qorituurkiisa 9 bisha maalinta Arbacada hadii Ilaahay yiraahdo taana sida aynu ogaano de kulley xogta inta badan waynu haynaa oo in badan baynu maamulada iyo macallimiinta kooxaha iyo gudoomiyaashaba soo shiranay waynu wax badan isweydaarsananay laakiin waxaanu isku baraarujinaynaa dib u furudii iyo in dib loo bilaabmayo waxa kale oo isaguna insha Allah biidmilaahi ta'ala suuqii kala iibka oo isaguna inoo xirmi doona maalinta Khamiista oo bari ku beegan hadii Ilaahay yiraahdo standardka caalamka markay bilaabmayaan maalin ka hor inuu xidhmo marka taana sida hawlo socdaan dhammaan maamulada iyo macallimiinta naadiyada heerka koobaad iyo heerka labaad iyo heerka saddexaad taasina waa sida waxa kale oo intan uga faa'iideysan lahaa kulli sharciye iyo shuruudo ayaa buugga inoogu yaalay fariintan faraya maamulada iyo macallimiinta waxa weeye kow qodobadii hore inoogu soo noqday ee buugga ku yaalay inta badan aan ciyaartooyadu aan ka dheregsaneyn oo tahay dhuuxyada nigiska ka hoos marsan nigiska kale oo ciyaartooyga aan la ogoleyn laba midab ay kala noqdaan taana in ciyaartooyadu ka dheregsanaadaan sidoo u qaataan ciyaartooy kastaana lambarku isku diiwaan galiyay uu ku furtay horyaalku ku ciyaaraya lambar kale kuma ciyaarayo hore ayuu ganaax inoogu dhacay ganaaxyada inaynu soo baranay bay anayaan malaynayaa in badan laga soo dheregsanaa oo dadku ay barteen waxyaalihii hore ay xumeeyeen in xagga dambe ka sixi doonaan marka taana kooxuhu maamulada macallimiinta waxaan leenahay dadka sharciyada u akhriya
oo aad iyo aad uga dhargiya qof walba qodobka qabanaya iyo qodobka ka soo horjeeda waxa uu samaynaya ee burinaya marka taa hawlo socoto waxaanu rajaynaynaa un dhammaan in ciyaaruhu inoo furmi doonaan si qurux badan in ciyaaruhu inoogu furmi doonaan si qiimo badan in ganaaxyadu ka yaraan doonaan ganaaxyadii hore dadku sharciyada ka dheregsanaan doonaan dhammaan kilaabiyada waxaanu rajaynaynaa guul waxaa kaloo halkan aad iyo aad uga salaamayaa axmed oo u qaabilsan xidhiidhka kubadda cagta saxaafadda oo isagu mas-uul ka ah isagaa xidhiidhka uga mas-uula saxaafaddana waxaan uga faa'iidaysanaynaa uun inay waxay gudbinayaan yihiin sportiskuna aanu mixnad iyo munaafiqnimo iyo xumaan ahayn laakiin isku soo jiidka sportiska iyo walaalaynta ay tahay taana inay ka dheregsanaadaan bahda sportiska iyo bahda saxaafaddu ma kala maarmaan iyagaa wax isku ah wax qurux badan baa la wada gudbinayaa iyagu markay walaalo noqdaan baa sportiskuna walaalo noqonayaa dhammaan gacmahaynu isku qabsanno sidaynu ciyaaraheennan ugu gudbin lahayn dadka badan een maanta goobjoogga ahayn aad iyo aad baan idiin salaamaya wasalaamu calaykum